السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan waan idin salaamay. Bashbash caafimaad qab iyo nabad qab baan isugu soo noqonay. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdo la yaab leh oo ku dhacday wiil 23 jir ah. Haddaan muuqaalka gudagalin haddaad ku cusubtaa subscribe baad saaraysaa. Muuqaalada soo dhigno sidaad ula socotay gabaleedkana waa furanaysaa. haddii hore noola joogtayna like baad saaraysaa muuqaalka siduu dad badan u gaadho. haddaba ku soo dhawaada asxaabta dhacdadan bal ku dhacday wiilkaas. waxa uu ahaa wiil 13 jir ah. dhibaatadiisa waxa ay bilaabmatay kolkii dugsiga sare uu qalin jabiyay, shahaadadiina uu qaatay 1956 uu qaatay. maalinkaas himiladiisa waxa ay ahayd kulliyadda booliska inuu ku biiro. wuxuu doonay inuu jaamacad galo, balse markuu waayay duruufuna ku kalifeen inaanu gali karin kulliyadda booliska ayuu galay jaamacad ku taala magaalada Istanbul. magaalada ayuu u soo wareegay. magaalada ayuu ka degay dhismo u dhow dhismayaasha u dhow jaamacadda uu galay. dhismaha waxaa ku wehelinayay wiil ay saaxiibayeen oo isu tuulada ka imaadeen inay ku saaxiibeen waxbarashada. toddobaadkii koowaadba waxa uu arkay saaxiibkii oo guriga soo galay isagoo gabadh wadada ka soo watay gacanta haysta. wuuna qabsaday. arrinkan meel xun buu la gaadhay labadood, waxaana uu isku dayay inuu gabadha guriga ka buriyo eriyo. ugu dambeyn waxay saaxiibkiisu isu afkarteen inuu qolkiisa hoosta ka soo xidho oo qolkiisa ku nagaado, gurigana dib dambaysa aanu falka foosha xun aanu ula iman. maalinta aflagaado kasta oo afkiisa ka soo baxa uu kula dhacay uuna ku caay. albaabka qolkiisa ayuu hoosta ka soo xidhay isagoo ciil iyo cadho aan la fadhiyi karin. intaa waan tasbiixsanayay buu yidhi, ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiisanayay. kadib saacado ayaa ka soo wareegay. qolkaygii anigoo fadhiya ayaan maqlay cod ka soo yeedhaya iyo sanqadh qolkii ka soo yeedhaya saaxiibkay. saacado kale ayaan haddana maqlay. dabadeed qolkayga ayaan ka soo baxay, waxaana isugu dayay inaan soo fiiriyo qolkii saaxiibkay. qolkii ayaan tegay oo albaabka ayaan ku qaraacay. kadib qolkii ayaan soo galay anigoo khajilsan oo raaligelin wada oo ka doonaya hawshan inuu iga qaybgeliyo saaxiibkay. iga qaybgeliya. hadda waa ninkii diidanaa inuu saaxiibku gabadha guriga la soo galo inay waxaan macaan tahay. waa ka soo cararay qolka oo saaxiibku waaba la yaab. maalinkaas wixii ka dambeeyay noloshiisa oo idil ayaa isdhalin rogtay. cabiska sigaarka ayuu bilaabay, heer uu balwad joogto ah ugu noqdayba. khamriga ayuu sarajeedka ku qurqurin jiray. baararka magaalada caan ayuu ka noqday. daroogada ayuu ugu sii gudbay. gabadh kasta oo jirhkeeda ka ganacsatana uu gacan mariyay. natiijadii ka soo baxdayna waxa ay noqotay inuu ku dhaco imtixaankii jaamacadda. guuldarradaas oo gaadhay qoyskooda uu ka qariyay sidaanay ula jarin biilkii, balse hooyadii ayaa ka war heshay xaaladiisa oo canaanatay. canaan bay kala dul dhacday. maxaa sida hooyo kugu kalifay? hooyana waad dareemi kartaan. markaa waxaan hooyadii baa la talisay oo kula talisay inuu falkan foosha xun loo ka dhex baxo. hooyadiina shaydaan uma gargaarinay siday hooyooyinka Soomaaliyeed sameeyaan. markuu qof wiilkoodu khaldamo way dilaan ama gurigay ka buriyaan ama gurigay ka eriyaan. midhbaa uu caqli celiya oo sasaba oo soo shaydaan aan u gargaarin. hooyadii way soo celisay wiilkii, waxayna ku tiri waxbarashadaadii sii wado. waxaana uu ballan qaaday biilka ay u soo diri jirtay inay sidiisii uu soo dirto, iyo waxa kaloo ay ugu ballan qaatay inaanay aabihii ugu sheegin, aanan aabihii la wadaagin waxa uu sameeyey. isna wuxuu u ballan qaaday inuu ka dhex baxayo falkan foosha xun leh. waxbarashada ayuu ku soo laabtay, balse markan hooy u gaaraa ama guri u gaaraa ayuu kiraystay. wuuna ka dulbaxay saaxiibkiisii markii horeba wadada khaldan ku riday ayuu ka dhex baxay. hooy gaara ayuu kiraystay waana ku halkaas waxbarashadiisii ka sii watay ilaa
sanad 3 sano waarsanaa sanad buu dhacay 3 sanana uu sii watay marka ay halkaas markuu qalin jabiyay jaamacadii kadib hooyadii ayuu ku noqday marka qisadaasuna halkaas ay ku tahay qisada waxaan ka qaadan karnaa oo cibro qaadasho waxa weeye wiilashan la hadlay inaanay raacin saaxiibka xun haddaad raacdid adna wadadiisu waad ku biiraysaa intay sidaas uu xumiyoon baad u xumaanaysaa haddaad raacdid saaxiib dhanka diinta iyo cibaadada ilaahay ku wacan insha Allah ilaahay adamkiina adna dhanka diintaad ku wacnaanaysaa sidaad saaxiibka cibaadada ku wacan soo socotoon buu ku oranayaa saaxiib waa leedahay mijaadsan uu beersi waxaad saarkaysaa adoo weysweystay adoo salaadii gale hadda waxa weeye ninkaaga aan tukan jirinba marka saaxiibka wacan waa muhiim saaxiibka xume aanan dantiisa adduunyo dantiisa aakhiraba seegay ka dhexba idina nolosha khiyaaliya ku nool anu qofka soo biliyad cuna waxaan u aqaanaa inuu khiyaali ku nool yahay bilwada wuxuu ka dheefiyo muruqaan hadii tahay marka saaxiibka xun laga fogaado inta muuqaalka xidan suugu imanno hadaad halkan ku cusubtaa subscribe saaraysaa hadii hore noola joogtana like wad ku qabanaysaa waxaad ka faa'iiday comment-idan ugu reebeen qisadan ama dhacdadan inta muuqaalka xidan suugu imanno waxaan iga tagayaa amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh